xildhibaan cabdishakuur cali mire oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Cabudwaaq waxaana xildhibaanka garoonka diyaaradaha ee Cabudwaaq ku soo dhaweeyay maamulka degmada wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyaro iyo boqolaal shacabka lixda xaafadood ee degmada Cabudwaaq xildhibaanka ayaa markii uu soo degay waxa uu gacan qaaday mas'uuliyiintii iyo shacabkii ku soo dhaweeyay garoonka gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Cabudwaaq Muxyidiin Cabdi Geele ayaa ugu horreyn ka hadlay goobtii soo dhaweynta waxaan maanta meeshan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ah xildhibaan laga soo doortay degmada Cabudwaaq waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow ku soo dhawow deegaankaagii ku soo dhawow dadkaagii gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inaad maxaan ku raad dadkaaga iyo maaragta waxa ay qabaan aad aragto haddii ilaahay idmo xildhibaan waxaan ku leenahay ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba degmada Cabudwaaq gacmo furan ku soo dhawow aan ku leenahay qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xildhibaanka waxaanay u rajeeyeen in mar kale uu noqdo xildhibaanka matalaya dhaweynaynaa xildhibaanka Cabdishakuur Cali Mire xildhibaan soo dhawow dadkaagu waa ku sugayeen adna waa ilaahay waa noo ka keenay warna waa noo dambeeyaa iyo wada hadal soo dhawow xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ah xildhibaan federaalka Soomaaliya ah si gaar ah deegaan doorashadiisu tahay Galmudug Cabudwaaq ayaan maanta u nimid halkaan inaan soo dhaweyno xildhibaan maamul goboleed degmo bulsho cidii aad matashaa ku soo dhaweysay soo dhawow markay iswaraysato dadka ay sida qaaska ugu ganacsan tahay bay kugu tilmaantaa soo dhawow xildhibaan Beyle Cabdi Warsame oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug ayaa sidan ka sheegay goobta meeshaan u taagannahay soo dhaweynta xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo deegaan doorashadiisu tahay degmada Cabudwaaq oo runtii lagu tilmaami karo xildhibaanada 275 ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwooda ugu qiimaha badan inuu ka mid yahay waan ku faraxsanahay imaashihiisa iyo soo noqoshadiisa deegaanka waxaanu leenahay xildhibaan dadkaagii iyo dalkaagii oo ku jecel ku soo dhawow xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo marka hore u mahad ceshay shacabkii iyo mas'uuliyiintii soo dhaweeyay ayaa sheegay in shacabka Cabudwaaq ay yihiin dad jecel dawladnimada maan bulshada Cabudwaaq waxaan uga mahad celinayaa sida sharafta loo walaalnimada leh ehelnimada leh oo qadarinta iyo jacaylka uu ka muuqdo oo ay soo dhaweeyeen waan kala mudanahay waa magaaladii aan ku dhashay xuduntaydu ay taal taariikh weyn iyo magac weyn igu leh magaalada dugsi quraan ka bilaabay dugsiga hoose ka bilaabay aan dariiqadeeda ku ciyaari jiray markii dambana ilaahay ugu sharfay inaan xildhibaan aan ka noqdo waan idinla joognay muuqaalkanaga aan ka maqnayn laakiin niyadaanada iyo mataqaanaa dareenkaana waa idinla joognay waxaa intaas dheer waxa ogtiin waxaa haddii ilaahay idmo rajaynaynaa inuu soo booqdo degmada Cabudwaaq ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Roble iyo madaxweynaha dawladda Galmudug sharaf ay u tahay in degmada Cabudwaaq ay madaxda qaranka iyo madaxda dawlad goboleedku yimaadaan inaan sidaan si la mid ah iyo ka badan ba uga qayb qaadano muddada ay joogaan inaan si weyn oo sharaf leh u soo dhaweyno oo aan tusno dareenka anaga iyo Cabudwaaq kaalinta lagu yaqaanay oo dawladnimo jacaylka ahayd dawladnimo jacaylka Cabudwaaq ma ahan mid oo shuruud ku xiran cid kasta oo Soomaaliya oo dawladnimadii qarnimada Soomaaliya ka shaqeeyay waligeed Cabudwaaq oo laga taageeri jiray qulubta reer Cabudwaaq iyo qulubta dadka ku aftirsaday deegaankan ayaa la Cabdullaahi Jaamac Honkable TV Cabudwaaq moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai موبايلو تلاجدو قسالدو تابلتس dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad
tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee teleefankaaga kadibna geli teleefanka qofka aad doonaysid inaad u codaysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama se bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333